kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Fiid Wanaagsan. barnaamijka waxa idin la socodsiin doona anigoo Miski Maxamed Caata. qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaana waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku wajahan magaalada Cawdwaq ee gobolka Galgaduud. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo markii ugu horeysay ku tagay booqasho dalka Britain. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena Fiid Wanaagsan. haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku wajahan magaalada Cawdwaq ee gobolka Galgaduud. warbixin umuurtaasi la xiriirta waxa ay noo soo diray Maxamed Faarax Caag. جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجي يفتو هجامنا يا ساكي كوجحن مقالة عبودوق قبل كالجلجدود مدحوينا مع سعودال كيس عبودا كوه لندونا مدحوينا أحمد دعالي جيل حاف مدح حكومة جل مدك الشيخ محمد شاكر علي حسن وزير حلوانا ككلا ترسان دولة فدرالك الصومالي إمام الكجا مقالة عبودوق وحا كسعودة ديار جروآت وبراران وكؤادن سودوين تا مدحوينها دولة فدرالك الصومالي يفتي جيسا وحا نودوين كووين لو حربي علن كالصومالي يا صبر كمدحوينها جمهورية فدرال وحا لفليا مركو مدحوينها تجو مقالة عبودوق إن وكلما لقادن دون قيبها كالدوان بلشدة وحريان وحجرتكي ammaanka magaalada Cawdwaq ayaa si aad ah loo adkeeyay ciidamada hordhaca safarka madaxweynaha ayaa gaaray Cawdwaq. Maxamed Faarax Caag, barnaamijka Fiid Wanaagsan, magaalada Dobley gobolka Jubbada Hoose, Jubbaland, Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thabit Maxamed Cabdi ayaa ka laabtay go'aan lagu waday inuu isku casilo kadib markii ay la shireen odayaasha dhaqanka ee gobolka Banaadir. warbixin umuurtaasi la xiriirta waxa ay noo soo dirtay Raxiima Maxamed Yuusuf. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed ayaa ka laabtay qorshihiisa uu ahaa inuu iscasilo. gudoomiyaha oo barbar fidhiyay xilwaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xubno wasiir ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi odayaasha dhaqanka ayaa damcay inuu iscasilo kadib buuq siyaasadeed oo kala dhexmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. ayaa go'aankiisa waxa uu ku celiyay xildhibaanada iyo wasiirada. gudoomiyaha ayaa ka cabanayay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la sheegay in ay ka soo horjeesteen dhismaha maqaanka Muqdisho. arrintan ayaa daba joogto go'aankii madaxweynaha Soomaaliya uu ahaa in saxiixiisa kaliya lagu bixin doono dhulka hantida guud ee Soomaaliya. xildhibaanada iyo wasiirada ayaa go'aanka madaxweynaha ee dhulka ku tilmaamay mid aanan sax ahayn. hantida muguuraanta ah oo taala dhulka Soomaalida oo dhan in lagu saxiixa madaxweynaha kaliya. khilaafka ugu weyn ayaa salku ku haya shirka wadatashiga Muqdisho uu duqa magaalada Muqdisho dhowr jeer ka dhawaajiyay kaasi oo 8 bishii uu dib u dhacay haddana qorshihiisa uu yahay 28 bishaani. odayaasha ayaa madaxda ugu sareysa ee dalka ugu digay in aysan ku fududaanin hilka qaadis lagu sameeyo Thabit waxa ayna xuseen in aysan beeshu yeelin in Thabit kaliya xilka laga qaado. Raxiima Yuusuf Maxamed, rasmi ruuxi barnaamijka Fiid Wanaagsan, degmada Wallaweyn, gobolka Shabeellaha Hoose. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in aynasan doonin xukuumaddiisa inta uu qof Soomaali ah xiran yahay. warkaasi waxa mar labaad inoo eegaysa wariye Raxiima Maxamed Yuusuf oo ku sugan magaalada Wallaweyn. oo soo dhaweeyay 42 maxaabiis Soomaali ah oo laga keenay dalka India ayaa sheegay in dawladda ay ku dadaalayso sii deynta kuwa kale oo wali xiran. waxa uu sheegay in marnaba aysan nasan doonin inta qof Soomaali ah ku xiran dalka dibadiisa isla markaana ay qayb ka ahayd ballanqaadkii uu hore u sameeyay. sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed uu ku baaqay in ay isgacan qabtaan si ay guul u gaaraan. shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan inta dhalinyaradeenna ay dalka dibadooda ku xiran tahay sidaan waagi hore idin sheegay ma nasan doona hadii Ilaahay yiraahdo. inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa kuwa halkan yimid
iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhawaada waxaan u sheegaynaa waalidkood la caweeye caruurtiina waxa kale oo aan leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaan iyo mid ka fiican ayaa noo soo yeelanaysa xukuumadda Soomaaliya ayaa hore dalka ugu soo celiyay muwaadiniin Soomaali ah oo ku xirnaa qaar ka mid ah wadamada caalamka waxaana dadkaasi ugu dambeeyay 42 ruux oo ku xirnaa dalka India balse haddana la doonayo in Soomaali kale dalka dib loogu soo celiyo رحيم يوسف محمد رسمي روحي برنامج كفيد ونكسن دكمة واللوين قبل كشبلها واتهاي داوديال halkaad inagala socotaan waa barnaamij kafiid wanaagsan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa markii ugu horeysay ku tagay booqasho dalka Britain asagoo ka hadlay sida uu noqon doono xiriirka ganacsi ee kala dhaxay dalka Britain warbixin umuurtaasi la xiriirta waxa inoo haya wariye Faisal Bishar Faisal Aligo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo jeediyay in dawladda UK ay u furan tahay heshiis ganacsi ah oo gaar ah oo ay ka heli karto midowga Yurub kadib bixitaankii Britain ee midowgaasi balse waxa uu ka digay in Britain aysan u suurgeli doonin helitaanka adeegyada suuqa xorta ah haddii aysan aqbalin sharciyada u yaala isagoo u waramayay wariye Andrew Ma ayaa waxa uu ka digay sida ay hore ugu digeen mas'uuliyiinta Brussels in UK aanan loo fulin doonin sida ay jeceshahay heshiiska ayaa noqon kara mid u dhaxeeya heshiiska suuqa xorta iyo kan ganacsiga ayuu hadalkiisa ku sii hadalka madaxweyne Macron ayaa imaanaya kadib booqashadiisa ugu horeyso ee uu ku marayo UK tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Faransiiska halkaas uu wada hadallo kula leeyahay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May Faisal Bishar Faisal Aligo barnaamijka Feed Wanaagsan Nairobi madaxweynaha dalka Masar ayaa ku dhawaaqay inuu mar labaad u tartami doono doorashada ka dhici doonta dalka Masar warkaasi waxa inoo haya Maxamed Jaamac Bulaale Armaajo madaxweynaha dalka Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa xaqiijiyay inuu tartamayo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Masar doorashadan ayaa noqon doonta tii saddexaad ee ka dhacda dalka Masar tan iyo markii uu kacdoon ka biloobay wadanka Masar taasi oo sababtay in xilkii laga tuuro madaxweynihii hore ee Masar Hosni Mubarak sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Masar lagu magacaabo Sami Anan ayaa isna xaqiijiyay inuu u tartamayo xilka madaxtinimo ee wadankaasi Masar Master Sami ayaa bartiisa Facebook ku qoray inuu doonayo inuu wax ka qabto dhaqaalaha wadankaasi oo u xidhan militariga oo kaliya hadalka madaxweyne al-Sisi ayaa ah mid la filayay waxaana loolanka madaxtinimo iskaga baxay madaxii hore ciidamada cirka Masar Ahmed Shaafi Maxamed Jaamac Bulaale barnaamijka Feed Wanaagsan magaalada Nairobi waa tahay daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijka Feed Wanaagsan intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid ka xiga anagoo ah bahda Feed Wanaagsan waxaynu kaga tageynaa sida ay amaana Allah